fanaaniinta ay ka mid yihiin Yurubgaanya iyo Hodan Cabdullaahi iyo Nicmaan Hilaac ayaa diiday sababtii loo cuskaday in laga saaray kooxda fanaaniinta ee xidigaha geeska waxay ka dambeysay shir magaalada Hargeysa ka dhacay markii dambana lagaga dhawaaqay in kooxda xidigaha laga saaray 4 fanaan oo caan ah sabtidii ayay u cuskadeen in fanaaniinta laga saaray kooxda wariyaha BBC da Axmed Saciid Cige ayaana weydiiyey Xasan Laab Salaax oo ah gudoomiyaha kooxdaasi. horta Axmed oo qof kasta oo sharciga iyo dastuurka iyo xeerka xidigaha ku gudfa xasan wuxuu lahaa ahaadee waa laga saaraya oo sharciga ka weyn qofka ama xubinka mana jiro nacayb qof loo qabo laga saara kaliya taa maaha maxay heeday markii ugu horeysay cid laga saaray balaadinku haday meel wada joogaan way isku gafayaan way isqabanayaan wal wada hadlaya oo imanaya maxay ismaandhaafka wax qoran oo loo noqdo markii aduun jirin ay mushkiladu tahay bal ii sheego masalan in labada hablood ee Yurubgeeye iyo Hodan Cabdiraxmaan oo caana mooyee yaad ka saarteen laba qof kale oo ka saarteen bal waxa kamid ah Nicmaan Cabdiraxmaan Xasan Hilaac iyo nin leeyahay Yuusuf Anad maxaad cuskatay markaa waxay kooxdu leedahay daljoog iyo dibad joog daljoogta waxaan u cuskanay waxa jira bishiiba hal mar buu kooxdu shirtaa shirkaasi waxa laga wada hadlaa waxyaabaha qorsheysan waxyaabaha qabiyoobay iyo waxyaabaha la qabtay ma jiro xubin ka maqnaan kara shirkaasi oo fasax ka haysan maamulka hadiiba uu 4 jeer ama 4 bilood qofku ka maqnaado si bilaa shuruuda waxa uu waajibaad gudanayaa maxay heeday ciqaabtaasi way kala fududahay mar waa ganaax mar waxa heeday waa shaqo joojin ama hawl joojin oo hakamaanu sameynaa marna gebi ahaanba waanu ka saarnaa marka qodobadaas ma nu adeegsanay laakiin markaad eegto Yurubgeeye oo kale waxa la leeyahay xamar bay tagtay ku xujowday xamar horta waa la tagi karaa magaalooyinka la tago maalin nool bay ka mid tahay waxaan qabaa in aragtidaasi waxa isku beegmay xaaladda xamar ay ku joogtay iyo waqtigan iyo ka saaritaanka laakiin ma qabo anagu ma nihin siyaasiyiin qodob xamar bay tagtay uma cuskan karno laakiin in cid kasta oo qadiyada iyo jiritaanka Soomaaliland ka hortimaada sidii shacabku dareenkooda yahay reer Soomaaliland ma aanu aaminsan marka miyay ka hortimi Yurubgeeye Nicmaan Hilaac iyo Hodan Cabdiraxmaan miyay ka hor yimaadeen goolistaagga Soomaaliland ma qabo imika dad badan waxay leeyihiin xidigii geesku waxay isu bedeleen siyaasiyiin ama dad meel gaara laga yaabo inay difaacayaan haddaba dadka Soomaaliga ku hadla markan iyaga dadka sidaa le aan su'aashooda weydiiyay maxaad ka jawaabsan waniyahow bini'aadamka Ilaahay abuuray aragtidooda waa dhaliil iyo toosin labadaba cidda aaminsan sidaasna iyaday ku kooban tahay laakiin waanu soo dhaweynaynaa cid kasta oo na dhaliisha oo tilmaanta iminkan kuleeyahay anagu siyaasiyiin manihin kuma milmi karno meel kama soo geli karno laakiin waxaad moodaa in muujadii siyaasaddu ay najiidanayso dadkii Soomaaliyeed meel kasta ha jooga ama qorbe waxaan doon siyaasi noqday xaaladda uu xiiseynayuu ka sheekeynay waa siyaasi uu ka dhigaya ka maxay heeday xadiisiga wuxuu ka dhigaya maxay heeday siyaasi marka mushkiladu maaha anaga laakiin shicibkiiba waxay u nuglaadeen ama jeclaadeen ama doonayaan inay ka sheekeeyaan carabkooda ku soo batay siyaasadda marka haday siyaasaddu najiidatay maaha waxaan ku jirno wax dadku jecel yihiin Xasan Laab Salaax gudoomiyaha kooxda xidigaha oo ka waramay sababtii ay u cuskadeen ay kaga saareen xidigaha geeska haddaba waxaan mar dhaweyd wareystay Nicmaan Cabdiraxmaan Xasan Hilaac oo kamid ahaa fanaaniinta la sheegay in laga saaray liiska kooxda xidigaha Nicmaan waxa uu joogaa Khartoum waxaanu iga waramay sida uu arko arrintaasi maalinta dhaweyd dhacday kalamaan hadin kooxda oo sababtan uga hadwayba ahayd iyo kalabkooduna ma ay soo bandhigin qodobada ama xeerkan qabanaya ama sababtan looga saaray kooxda markaas shir jirayd kaas uun bay ku sheegeen oo idlamay soo hadal ayaad leedahay lamay soo hadal anigu muddo 2 sano aan ka maqnaayo xiriirkaygu u yaraa kooxda laakiin shirkan jiraayad ay qabteen baa ahaaba xitaa mid marka ay bulshadu ay kulay wana arkeen bulshada inta badan oo saxaafado badan baa ka hadlay shir jiraayad wuxuu ahaa siyaasadeysan mid faneed ma ahayn marka arrimahan ay idinku soo oogeen maxaad ka leedihiin ruuxaantii arrimahan ay idinku soo oogeen adiga horta iyaga aad baan u eedeynay kooxda ahaan sababtan u eedeynayna waxay ahayd magacaan wadani baa ahaa geeska Afrika geeska Afrika ma aha un Hargeysa Burciyo Berbera loo baaran yahay marka anagu geeska Afrika ma ku guri jirnaa dhinacna ma dhaafin wax xeer jibinaya qodobada xidigaha geeska waan sameynaa ma jiro marka wallahi waa arrin aad uga xumaaday marka iyagu ma xidigaha geeska ma waxaad leedahay waxay leeyihiin magaalooyinka aad magacawday ha dhaafina miya waxaan lagu haystaa Nairobi aan joognay Muqdisho Djibouti aan joogay Suudaan baan hata kala soo hadlayaa intaas oo dhan
geeska Afrika kuma ku dhex jiray dhinac maan dhaafi ma la hadashay fanaaniinta kale ee Yurub geeyo iyo Hanad iyo Hodan Cabdiraxmaan idinku ma is wareysateen may ismaan wareysan oo lama hadlin markaas ma wareysan waayo ugu dambeyntii Nicmaan goorma aad ku noqonaysaa Hargeysa niyo Hargeysa horta indhow lagama yaabo inaan ku noqdo oo hadda waxaan u socdaa Tanzania ayaan safar u ahay bixitaankan Suudaan ka baxayo marka insha Allah waxaan islaahay adu sanadka dambe hadii la helo wallahi horta anigu markaan shakhsiyan Yurub ahaan markaan iska hadlo aniga Hargeysa iyo Muqdisho waa ismi waa laba magaalo isku mid ah anigu fanaanad reer Soomaaliland aan ahay fanaanad afka Soomaaliyeed ku hadashanahay meel walba af Soomaaliyeed laga hadlo ama laga dhawaaqo waxaan leeyahay waan tagayaa waana ka heesayaa anigu fanaanad Soomaaliyeed afka Soomaaliyeed ku heestaan fanaanka iyo wariyaha iyo dhakhtarku intuba xuduud ma laban oran karaa waxaan leeyahay fanaanku waa fanaan waxa wanaagsan in uu meel walba uu isagu waqti xaadirka fanaanintu waa iska sida dadkan ay sheeg maxaa la raahdaa ay wax ku soo degaan oo kale iska dhaqaaq oo kale weeyaan fanaanintu habeenba meel baa ku soo dhacaysa wuxuu jecel fanaanku inuu tago fanaanku la caqabadeeyo maaha fanaanku maskaxiyan iyo moraaliyan buu heesaa hadana moraal ama maskaxaanu haysan waxaan oran karaa fanaanku wuxuu heesayaa ama wuxuu bulshadiisa u soo bandhigayaa ma jirto fanaankuna waa muraayada bulshada waxaan leeyahay marka cid doonto ha noqotay anigoon cid aan ataagaya aanay waqti xaadirkan aanay jirin fanaanka caqabada ha laga qaado hala nada daayo